youtuberka ugu caansan Soomaalida ma taqaanin markaan leeyahay caansan waxaan uga jeedaa youtuberska marka qiimeynayaan waxa ku qiimeeyaan subscribers kuwa wax soo daaya soo idin ma yiraahdaan subscribe garee xidigta taabo share garee like ta saarba ku yiraahdaa muxuu intaa ku leeyahay intan waxa kaga xidhan dhaqaale kow cidda ugu subscriber badan ee Soomaaliyeed ee YouTube ku jira kubadda cagta ka warrama kubadda cagta ka warrama ee Soomaaliyeed dad 1 milyan ka badan ba subscriber vlog markaad ku dhufato vlog waa qaab loo eego YouTube ka waxa ugu badan ee la daawado therefore markaad ku dhufatay eegto war bar Soomaalida maxaa u badan ee la daawadaan ku dhuftay waxa soo baxday kubadda cagta inay u badan tahay YouTuber-ka ugu subscriber badan leh YouTuber-ka ku xiga ma taqaana wuxuu ka shaqeeyo alghina heeso soo bandhiga walabada YouTuber ee Soomaali ugu tiro badan ee subscriber laga yahay midna kubaddu ka warrama midna heeso soo bandhiga sir min milyan mushtarak ba ku xiran ka warra waqtiga dadka Soomaaliyeed ee milyanada gaadhaya subscriber-ka ee wax kasta oo ninkaas ugu hadla soo dhacaya milyan qof waqtigooda haddaad isticmaasho ka war 1 million people haddaad maalin kasta saacad ka isticmaasho waa 1 milyan oo saacadood ummadda ka khasaaray 1 milyan oo saacadood product-ka la soo saari lahaa imsu yi yani wadannadana joogtaan shaqada saacada lagu xisaabtamo Soomaa shaqaale 1 milyan oo saacadood shaqeeya maxay soo saari karaan wax badan may soo saari karaan Soomaa bal qiyaas ninka maalin kasta 1 milyan oo saac Soomaalida ka lumiya ma waxbuu taray mise waa khasaare adduunyo aakhira buu gaarsiiyey waxa ka mid ah in leenay bay yiraahdaan ishaacatu alfaahisha wa dabh alhayaa bay yiraahdaan xishoodka la gowraco iyo xumaha la faafiyo ilaahay quraanka wuxuu ku yiri إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا قوة جعل إن الزنا يحرمه قفافان ذاتك إيمانك لغهلي لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وآيات قرآن في سورة النور جدا وحيلي ينبغي لهيدا عذاب فلول أي أدونك يا آخر بليل والله يعلم وأنتم لا تعلمون بإلهي إلهي بانا وحق إذن وحمه إذن